وبرنامج كي أدو تسوق سنة كابتن كاي سبورت كقلبتنا برنامج كواحد ستة لانتاليا عندك وقصو بالبنية حلول شالو يعني جو عبد القادر موسى قبل شوعة كابتن كاي سبورتسكا وكولا كدل انت ما انت هايسكرين انتي كربا يوسن كوغوردين كلمدهين قصلك كلا القا صحو أرك برنامج كابتن كاي سبورتسكا وبرنامج أحلى وحصوق على تداول في نمو ساعة جيس كأفريقيا xidigaha kooxda federaalka iyo amisom ayaa la wareegay kubad heesashada stadiumka lagu naaneeso godka naarta ee Torotoro markii ay isdhigteen laacibiinta kooxda shabaab oo sanad ku tababaranaya halkaas guuldarada kooxdan qamiiska ku ciyaarta ayaana loo aaneynayaa xidigaha xulka Mareykanka oo dhowr jeer kulamo kadiisa ugu soo martiyay hawada garoonkaas iyagoona sahminayay fariimasoonka ugu macquulsan ee lagu wajihi karo naadigan baasajari ku duubata wajiga si TV-yada sportska aysan u baahin muuqaalkooda xagaagii hore ayayna ahayd markii xidigaha kooxda federaalka ay aan arki karin smartphone-ka taageerayaasha isaga baxeen gigidan iyagoona ku micneeya kaarta sports kooxda federaalka ayaa si maskaxaysan horyaalka Faransa ugu diray laacibkii hore ee BBC-da Yusuf Garaad kaas oo sanadii hore ku fashilmay inuu leeliyo xulka qaranka Soomaaliya wakiilo ka socda kooxda heerka labaad ee Marseille ayaana soo gaaray Muqdisho si ay u dhameystiraan heshiiska xidiga waqtigiisa ku dhameystay qatarta fargeetooyinka ku yeelan karaan garoonka Aadan Cadde saxaafadda Guriceel ayaana qoraysa in way aragan uu horyaalka Faransa ka jeclaan lahaa kan Ingiriiska maadaama yaraantiisii uu ku soo hanqaaday daarta ciyaaraha ee Bush House kooxda federaalka ayaana horyaalada dibadda u dirta laacibkii boos joogto ah ka waayay shaxda macalin garguurte horena waxaa sidan oo kale looga cag wareejiyay laacibka reer Hiiraan Samboloshe kaas oo mar dambe gartay in la iska soo fogeeyay كابتن كوحيجانكا كوحدة دم الجديد عمر عبد الرشيد يترك ترسن حدقيه سلاين أبكا أيا شلي كباغدا كلان صاحب تنما أو لقوة دا إني لا عياران كوحدة على سنة قدها جران كوين إدو سمريب ستاديوم قرعال إكسبريس أيانا آميسان إن باقا شداني أي كدن بيسن مركي كوحدة كوبادا كوكور ديجرسايا على سنة أي شرود وقدقين عيارتن إن لغا صوتاقا هالييغي قد كدحي مهد سلاد كاس أو لف دبروا كابتن كاللقو قصبينو دي معوليسكي سي عمر عبد الرشيد لكن مقدشة سبورتس أيا عدد كيدي هوريا ساكي كوصو دابا علي in xidigahan ay u baaqdeen soo dhaweynta kabtanada kooxaha ugu tunka weyn dalka kuwaas oo maanta ku kulmaya gigida caalamiga ee Muqdisho Stadium iyagoona ka doodaya nidaamka lagu soo xulayo ciyaartooyda xulkeena qaranka bisha 8aad ee soo aadan Norway ayaa kala noqday dhalashada qaranka dhowr xidig oo Soomaali ah kuwaas oo ka been sheegay magacooda xilligii ay iska diiwaan galiyeen horyaalka wadankaas sirdoonka wadankaas ayaana guddi isboortis u xilsaaray dabagalida xidigaha Soomaalida ee magacan kooda ahaan ku isticmaala baraha bulshada durbana laacibiin ay kamid yihiin Maxamed Deyo Yool Baxros Mustafa Indo Xuseen Nuuriyo iyo Deeqarooda ayaa ka fikiraya sidii ay magacyadooda deenta lagu leeyahay u soo qoran lahaayeen taasoo ay kaga badbaadi karaan in dib loogu celsho carayskii ay ka deganaayeen Yaaqshiid Boondheere iyo Qardho haddii laacibiintan ay la soo shirtagaan magacooda rasmigana waxay dhumin karaan taageerayaal badan kuwaas oo haatan ku qiimeeya naanaysta haatan laga mamnuucay wadankaas buuraha badan xidiga fanka dalmaryare ayaa isbuucan ka dhawaajiyay inuu soo gabagabeeyo soo xirigelinta laacibad heer caalami ah taa oo muuqeedu ku cusub yahay masraxa guud ee kubadda cagta laacibkan heesta kabaha dahabka ee naadigiisii hore ee kaxda ayaana la saadaalin karin inta daqiiqo ee garoonku wada jiri karaan xidigtiisa cusub maadaama timo dheeraan heerka caalami hore isaga fasaxay 3 xidig oo la qabsan kari waayay shaxdiisa dhaqaale doonka jariirada Express ayaana qoraysa in laacibkan uu ku taamayo in xidigtan ay ka saarto gruubka dhimashada ee tartanka Ramadan liiga iyadoo u soo gudbin karta finalaha ciida xidigaha waayaha cusub ee Digriyo iyo Lehla ayaa la qabsan la qaab ciyaareedka iskoolka qasabka isniintii ilaa Jimcaha laga ciyaaro horyaalada Yurub xidigahan aaminsan in tusbax qoortiga laga dhaxlay ayaana nasiib u yeeshay inay ka soo gudbaan wareegga 8aad ee kaabka Superkaabaha kaamka taasoo u saamaxaysa xidigahan ka nastay Kenya inay u dareeraan iskoolka 8 saac kor loo hayo qalin qoriga xidigahan macallimadooda xoog ku baray kooxda ay ka tirsan yihiin ee waayaha cusub ayaana haatan aaminay in daada 40 isbedel la imaan karo
xulka Jamaica ayaa kaalinta koowaad ka galay xulalka ugu badan ee iibsada xidigaha gabdhaha Soomaalida kuwaas oo iska fasaqay heshiiska ay kula jireen laacibiin badan oo Soomaali ah ila xogogaala ayaana muujinaya in xidigaha gabdhaha ay walaaca ka muujinayaan daayirta wiilasha kuwaas oo qaadan aalmiitada iskuuleysiga koor kulamada la ciyaaro 10 habeenimo qodobkaas ay u cuskan karaan hadii dacwad ka dhana loo gudbiyo FIFA sidoo kale xidigaha wiilasha ayaa iyana dhankooda u soo dukaamaysa tagaya suuqyada Yurub iyagoona si bilaash ku heli kara xidig ku soo ciyaar bilowda da'da 14 jirka taa oo raadinaysa kalar madow oo ay u hubin karto mustaqbal ciyaareedkeeda laacibiinta wiilasha ayaana sidoo kale ku andacoonaya in xidigaha gabdhaha Soomaalida ay xisaab u galaan dakhliga ayuutada xilli lagu guda jiro kulamada waajibaadka aqalka TVyada Sportska ayaa isbuucan baahinaya gool qurux badan oo xidigta Hodan Cabdiraxmaan ka dhalisay qaar ka tirsan xidigaha kooxda saxaafadda ee faalooyinka qaldan ka qora kulamadeeda weeyga bilisyonka xidigtan ku hubsatay shabaqa goolhayaha reer Holland ee Daar Isbitaal goolkan ayaana laga soo toogtay masaafo 29 mitir u jirta dilinta ganaaxa taas oo kicisay dareenka taageerayaal badan kuwaas oo qaarkood aaminsan in goolkan uu soo afjari doono xifaaltanka xidigtan kaga imaanayay 55 jirkan habeen waliba soo duuba BBC Sports ayaana mudnaanta koowaad siinaysa xidigaha Maxamed Aalti Nimcaan Hilaac kuwaas oo la rumaysan yahay in goolkan maskaxiyan iyagu ay ka soo shaqeeyeen guushan ayaana xidigtan ku sii haynaysa tartanka East Africa iyadoo sii naaqusinaysa qatarta kooxda saxaafadda oo haatan u muuqata mid la kala diray markana u diyaar garooba xubintani baafinta ugu horeyna waxa la baafinayaa macallinkeenii hore Ablaal markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in ardaygii ka baxa iskuulkiisa Ingiriiska uu kala mid yahay arday ka qalin jabiyay jaamacadda Oxford oo waalidkan ay ku raacsanaayeen haddaba cid allaale cidii aragta macallinkaasi safaaradda Canada ee Kenya loo turjumo waxa laga codsanayaa inuu iska diiwaan geliyo Atlas College Nairobi haddii uu dhibcaha ilaashanayo wuxuu Ingiriiska ka baran karaa online ama waxaad u shidaa telefishinka CNN isaga go'aan degdeg ah qaadan doona markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in afka maymaygu uusan ka mid ahaan luqadda qoran ee Soomaaliga haddaba cid alaaliye cid aragta laacibkaas ilkihiisa cad hiliba u goyn karin waxaa laga codsanayaa in TV-ga ay soo fadhiistaan si muuqiisa loo helo haddii uu fashil dareemayna waxaad u daari kartaan heesaha Cumar Shooli ama Saadiq Sayga isaga carro darteed video iska soo duubi doonee sidoo kalena waxa la baafinayaa xidiga saxaafadda Cabdimaalig Coldoon markii cid ugu wardambeysana wuxuu wadooyinka Kuala Lumpur ku maray dacas iyo macaawiis u burca kala yimid haddaba cid allaale cidii aragta xidigaasi aaminsan in xariga lagu soo caanbaxo waxa laga codsanayaa inay ka dhisaan styleka labiska haddii uu walwal ka qabo jeebkana u sheeg in la qeyrta cas ka caawin doonto si walba oo loo heli karo muuq wariyo caalami ah xidigii hore ee kooxda Juventus iyo naadiga suuqa xoolaha Bootaan Ciise Caalin Xaraan ku dhac markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in taageerayaasha u safraya gobolada canshuurtoodu ay xalaal tahay haddaba cid alaale cidii aragta laacibkaas afartiisa gaare ee Sports lagu tixgelin jiray waxaa laga codsanayaa in shaqo uga raadiyaan kooxda xulka qaranka haddii shahaado lagu xujeeyana waxaad ka shaqaalaysiin kartaan shirkadda Hormuud iyaga agaasimo ka dhigan dooneen ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni Kaftanka Sportska waxaana si wada jir idinkugu daadinaya Cabdiqaadir Baasi waliba Luulu Shaalo halku dhiga barnaamijkeenu waa lagu xaanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa intan dib daba barnaamij caynkan oo kala ka kulmayna wanigii boosooda leh gaashaankii noloma kana gabagabada heesta barnaamijkuna waa waxaad samaysiyo taageero iyo heel nafku taagan bana codkii halaasiya digriyo iyo waliba daaqii wada jirka ahaa Najma Maxamuud iyo ugaas cadda ka cadda from Australia dawasho wacan waxaad samaysiyo taageero iyo heel nafku taagan marka talada seeto abaalaha adduunyada inkii toos laayo ku taagabane